dhageystayaal iyo daawadayaal waxaan ka amabaxaynaa magaalada Boosaaso xarunta ganacsiga ee Puntland waxaan safar ku aadi doonaa hadduu aabe idmo deegaano ay ka mid yihiin gobolka Bari sida Laag iyo Karin anagoo ku horgali doona xaaladda beeraleyda Puntland ee gaar ahaan gobolka Bari iyo wax soo saarka dhanka timirta hadduu aabe idmo waxaan idin soo gudbin doonaa macluumaad badan oo ku saabsan timirta iyo qaabka gobolka Bari ay uga soo baxdo suuqgeynta timirta beeraleyda iyo habka ay timirta u beeraan iyo macluumaad kale oo timirta ku saabsan safarka waxa igu heliya gudoomiyaha beeraleyda gobolka Bari Axmed Maxamed Muumin marka waan si amba qaadi doonaa safarkeena hadduu ay beedmo gudoomiye thank you مدك بيوعي صدانو قلتمها وبيار القريان والوغدا بالكولا وبريري واريو باريني وكوكا السنة وبابا جدا بدي حولو هيكو بدينو مدك بيوعي صدانو قلتمها وبيار القريان والوغدا بالكولا وبريري واريو باريني وكوكا السنة وبابا جدا مبدأ لغو بليا تعينك أدم يهي وقري وغاتو وغاتو بريان برواقنا كوغاري برواقنا كوغاري هولو بريريو مرو رئيس بيشا مبدأ لغو بليا tahay dhageystayaal sidaan hore idinku sheegnay haatan waxaan joognaa mid ka mid ah beeraha Karin waa deegaanka Karin ee gobolka Bari waxaan doonaynaa bal inaan ogaano xaalka beeraha iyo beeraleyda siiba timirta inagoo diiradda saari doona qaabka ay u soo baxdo habka timirta loo guro iyo sidoo kale marxaladaha kala duwan ee timirta ay marto haatan waxaa nala taagan oo goobtan igula sugan Saciid Cali Maxamuud oo ka mid ah guddiga beeraleyda ahna odayaasha deegaanka Saciid ku soo dhawow radio Daljir oo kaaga mahad celinayna iyo barnaamijkan gaarka ah aan ku eegayno timirta iyo xaaladeeda iyo qaabka u soo baxdo
inkastoo dadka aysan aqoonsaneen amaba se ogeen faa'iidada timirta ay leedahay innagoo aan ognahay in dalka dibaddiisa timirna looga keeno haddana dalkeena ay ka baxdo timirtan aan soo aragnay marka bal marka hore soo dhawo marka xigta bal waxaad nooga sheekaysaa timirta iyo marxaladaha kala duwan ay marto bismillaah horta aad baa ugu mahadsantihiin imaatinka aad noo timaadeen waa idinka mahad celinaynaa waxaan kaloo raacinaynaa maadaama aad noogu timaadeen beri oo wax naga weydiiseen siiba timirta waxaan idin habka iyo qaababka iyo sida ay u baxdo iyo marxaladaha ay marto ayaan bal wax yar intaan ka gaari karno ka sheegaynaa insha allah marka timirta horta dee markeeda hore waa uun lafta timirta xabadda mirta oo la cuno lafta ku jirta ayay ka soo jeedaa asalkeedu laftaasaa dee dhulka lagu ridayaa waqti bay ku soo baxaysaa way barbaaraysaa 5 sano 4 sano hadba siduu geedku dhaqaale u helo ayuu wax ku noqon karaa geed markaa miro dhala oo xilligii macnaa wuxuun laga dhadhamiyo markaas horaankiisa la gaaro inta ka dambeysana wuu korayaa baaxadiisuna way weynaanaysaa miro bixintiisuna way sii kordhaysaa badanaysaa intuu korayaba marka timirtu way hadda xilligaan aan joogno xilliyadan dambeeto laba nooc bay u qaybsan tahay xilliya baa jiray timirta lafta la beeran jiray oo laftaasi marka ay korto oo 5 sano gaarto ama 4 sano gaarto ay kala qaybsami jirtay qaybna ay noqon jirtay dhidig lab qaybna dhidig labka marka waxba badan lagu fali jirin waa la qobi jiray waa la tuuri jiray wax yar baa laga isticmaali jiray laakiin sanadahan dambe waxaa jirtay in la keenay ilaa 3-4 jeer timrihii lagu soo xanaanayay banaanka oo la soo bacrinta ahaa oo iyagu habaysan oo aan ahayn lafti ahayn taasaan u badan hadda meesha timirta hadda badanaaba la gurto oo la beeray orgideeduna waa wax iska kooban oo loogu talagalay iyada lagu faxlo timirtaas marka saa hadday u baxday timirta faa'iidooyin badan baa lagu qabaa waxaan ognahay dalka hadeer inay marba mar ka dambaysa sanadahan dambe in markii timirta dibadda inoo ka timaado ayaa badnaan jirtay laakiin hadda waxaa moodaa inay gobolada Puntland ku soo yaraanayso tanina soo kordhayso haddii marka xoog la saaro oo yani la fahmo oo yani loo wada hawl galo waxaaba dhici karta marka dambe inay istaboosho oo Puntland baan u baahan timirahan VIP da tan oo la keenay laga maarmo marka timirta xaaladeedu caynka weeye in kasta oo de mar walba oo qofka beerta iyo beeralaydu xoogay isku dhiban yihiin oo u baahan yihiin kaalmaati wax kaalmeeya sida walba waxa loo kaalmeeyo ama dhaqaalaha lagu kaalmeeyo ama xoog lagu kaalmeeyo wax adigu riixa adduunka ilaahay waa iska kol baan kala wada soconaayo beeralayda weligeed waa la kabaa marka insha Allah kabitaankaasna de kulay dadku waa ka warsugayaan dhinac kasta ama dawladda kaga timaado hay'adda ka timaado biyo waa dhowr nooc weeye biyo ilaa iyo biyo togagaas iyo maartay ceelal ku jira oo matoor soo saaraan kuwa diinaba soo saarto kuwa solar loo isticmaalo intaba waa la isticmaalaa marka waxa laga shaqeeyaa oo wax laga soo saaraa waa intaas aad bayna maartay tayadeeda iyo maartay muuqaalkeeda iyo koritaankeeda iyo sidii u horumarisaba aad bay u fiican tahay xilliyada ay baxdo timirta badho xilliyada timirta baxdo horta timirta bisha labaad sanadka February ayay waxay bilowdaa xay wax la yiraahdo xayga markii soo bixiso marba nooc buu noqonayaa way yaraanaysaa way koraysaa mirmir bay sameynaysaa gobar bahaliyaga ku sameysmaysa waxa ku sameysmaya midab ama casaan ama jaallo midabkan markuu sameysay bishii 6 15 dambe marka la gaaro ilaa 7 bisaylkii waa ku balaabanaya marka bishii 6 iyo bishii 7 ilaa bishii 8 ayaa miraheeda rasmiga iyada oo bisil oo diyaarsan oo la guraa la habeeyaa markaas waayahay marka la goynayo marka marxaladaha ay marayso ma noo sheekay marka la goynayo marxaladu way kala badan yihiin kala nooc kala bedelan yihiin dhirna waa dhir gaaban oo yar yar sida kuwa hanadin ag taagan oo kale oo qof walbiiba uu jawaan ku ridi karo oo shimbiraha iyo waxyaabaha cayayaanka iyo waxyaalahaas kaga xafidi karo midna waa timirtii hore oo dhaadheer ah taa xoogaa waa lagu dhib qabaa dhaadheerka ah oo marba bixideeda qofku meel u qabsado iyo qalab loogu baxo ku qaaday wiish oo kale tan male laakiin waa la iska raftaa waa la awdaa dabadeetana markay bislaato ayaa la soo jaraa marka banaanka la keenaa dabadeedna waa la kala guraa la barsal gareeyaa waa gartay marka waxaan nooga sheekaysaa muddada ku baxdaa shaqaysa muddada waa soo sheegay marka ay laf tahay 5 sano ama 4 sano ugu badnaan ayaa lagu sugayaa wax dhalkeeda ugu horeeya mira dhalkeeda ugu horeeya marxalad kala duwan bay martaa ka soo sheekaysa marka kala guridda marka loo yimaado timirtii way baxday waa la waraabiyay sida u jeedno mirihii bay bixiso wataas marka qaabka loo kala guraayo waxa weeye laba nooc baa horta badanaa laba nooc bay u qaybsantaa geedka marka ay ku taalo la soo gooyo qaybna waxa la dhahaa busur
qaybna waxaa la dhahaa dhuguc qaybta busurku waa qaybta qawx tiraahdo oo weli aan maaragtay biseelka iyo dhacaankooda yeelan moogta qaybna waa marka ay wada bislaato xabad waa dhuguc marka labada noocba dadku qofba wax buu jecel yahay labadaba waa loo kala guraa nooci rabana busurta loo diyaariyaa nooca rabana waxa loo diyaariyaa biseelka aad u wada bislaaday timirtu iyadaaba kala midab ah oo 10 geedo meel ku yaal mid baa wuxuu noqonayaa yani wuxuu noqonayaa classic wala dhoo nooca wala asalkeedu ka soo jeeday mid baa wuxuu noqonayaa faaquri mid baa wuxuu noqonayaa sahri mid baa marka wala kala yaqaan geedo loo marisa laakiin uu waa timir waaya marka marxaladaas ay soo marto timirta geedka ay ka soo baxdo la kala guro la kala hufo ka soo sheekaysay marka waxay isku diyaarinaysaan hadda beeraleyda tihiin inaad suuq geysaan halka war qaabka suuq geynta timirtiina ama wax soo saarkiina qaabka suuq geynta waa loo diyaariyaa waxa loo soo qaadaa parcel ama yani waxyaabaha lagu xafido oo aad u muuqdo oo isagana maartay qofku dushana ka arki karo miisaankeeduna saxan yahay ka bacdi kaas lagu qiimeeyaa waa lagu ridaa waa la suuq geeyaa way socotaa aad iyo aad baa loo isticmaalaa hadda suuq geynteedu ma xumo waaya marka saa ka soo sheekayna hadalkayga hore aan ku bilaabay dadku timirta waxay isticmaalaan dalka dibadiisa ka timaada marka ma ku filantiin hadda ma la oran karaa waa laga maarmi karaa timirtii oo waa lagu tashan karaa beeraleydii oo waa soo saareysaan oo suuqii magaalooyinka Puntland oo dhan waad ka faala qaadaysaan arintaas waxaan ka leeyahay horta dhulka Puntland badanaaba timirtu waxa ay ka baxdaa oo ay gaar u tahay inta xeebta badda cas ku laalayso ilaa caluula ilaa iyo ceergaabo oo badda cas ku xiteedsan xagga iyo nugaash iyo marka la gaaro waxa laga yaabaa way baxdaa laakiin tayadeedu way sii yaraataa hawada bedelan marka haddii laakiin inta xoog la saaro oo maaragtay sida hadda ay u socoto oo la sii dhiiri geliyo oo la ballaariyo la fidiyo muddo dhow ka bacdi waa laga maarmayaa mid laga kala banaan way caqabadaha mararka qaar soo wajahan caqabadaas waxa waxa kamid ah dhaqaale xumo oo qofku maaragtay dadku badanaaba yaambo iyo waxa la yiraahdo garweyn bay la ordaayaan laakiin qalab waaweyn oo maaragtay capacity leh ma awoodaan nin walba wuxuu ku beeraa inta tabartiisa iyo xoogiisa ama ilmihiisa uu gaari karo laakiin haddii helaan wax inta uga badan oo dhinac kasta ama dhaqaale ha noqoto ama qalab ha noqoto ama siir wax kasta waa horumarina marka gaabka halkaas ku jira waa marka ma jirta cid ka taageerta dhinaca soo saarka oo marbar waxa dhacday timiraha sida la keeni jiray oo kaleeto oo qoladan marka timirta in gaar uga hadalno qolyahan jeef oo waaga hor keeni jiray timirta oo aan ku leeyahay wax laga keenay banaanka de wax tarbe ah dadkii timirta rabaysan baa loo keenay ku riteen oo meeshooda iyadoo intan la eego maya waa siirka dheecaan baa la qaaday dheecaan iyo waxyaabo noocaas waa wax aad u maartay cilmiyeysan marka yeelkeeda taas un baa adigu hadda naga taageertay qolyahaas way ugu dambeyntii marka maxaa cusub ah oo soo jeedin lahayd oo jeclaan lahaydeen hadda beeraleyda tihiin dhinaca wax soo saarka in la ka taageero waxaan cusub soo jeedin lahayn in beeraha loo soo jeesto maadaama adduunka xataa hadda waxa laga qeylinayaa waxyaabihii cuntooyinkii la cunayay in xataa ay dhibaatooyin ku jiraan marka waxyaabo la beerto in la dhiiri geliyo oo dadka waliba hantida haysta maar oo sharaa'iga iyo beeraha maal gashtaan si wax soo saarna uga soo baxaan dadkuna faa'iido uga helo saas soo jeedin والله هرت مركو إلهي ما محد سكاله سوق كان إلهي ما محد سكاله سوق كان ماشان برنامج كان كسب سنبيرها أما تمرتا تمرتو وحويه تمر قديم يا تمر عصب لبده واجرتا بس إذا وشيء قد إنك يجوري تمرتو واللف يحول لفت وصور ديريسا وحقت كعرتا ويران 3 سنة 4 سنة لكن حول كوادها 5 سنة 6 سنة 7 سنة ولا كعرتا حالة إيبك أما جناحسي جدنا وحي هاي وحنكو قرا بارسل وحنو جينا لاميجا كارين بوساسو قردو إلى حمر حتى واقش سنتك سيدا هو جناحسي جدو soo saarkeeduna waa sida ama bishii imis timira qaadaan maalintii ninkii shakhsigiiba maalintii ilaa wuxuu qaadaa 100 kilo qaadaa dhaqaale ahaan maxaa ka soo gala dhaqaale ahaan waxa naga soo gala maalintii ugu yaraan 500 oo kun shilin Soomaali kilo 500 kun meelaha naga soo gashaa marka ma tahay mid nolosha qoyska ka fayn karta wallahi de horta qofku baahida ilaahay baa bixin kara baahi binaadan إلهي بابين كره
hase ahayd waxa lala dagaalamaya nolol maalmeed kulli qofku markii uu iimaanka qabo wax uu haysta iskaga filan yahay taas sidaasan kale waayahay imse beerood ba ku yeelaan karin beer waa badan yahay ilaa 250 ilaa 300 waa gaaraan markaas sembitro oo nooc walba leh marka aan kala qaadno timirta iyo kuwa kale timirta waa timirtu waa badan tahay laakiin cadadkeeda ma hayo tiradeeda ma hayo warba marxaladda waraabka timirta waa nagu adag yahay biyihii waxaan ilo qadiimiya xataa qaarkood biyo yareeyeenba dhaqaale macnaha loogu qoodo ceelal hoose iyo magarasa soo loogu saarana ma laha awoodan saamaxayn marka maxaa codsan lahayd waxaan codsan lahayn solar biyo gelin nala ka caawiyo si wax soo saarka u soo kaco u soo kabto intaasaan codsan lahaa dhegeystayaal iyo daawadayaal haatan waxaan joognaa beeraha mid ka mid ah beeraha laag ee gobolka bari waxaan la taaganahay saa u jeedaan yaasiin sahal xirsi yaasiin soo dhawow bal nooga warbixi beertan iyo salaamaynaa bahda daljir salaan kadib halakan timirta horta gobolka bari Puntland marka la yiraahdo gobolka bari meelaha timirta ugu horeysay bay ka mid tahay markaan xuso taariikhda la ii sheegay adigu 2 qarni iyo bar bay timirtu yani ku tiil oo la intifacsanay timirta saa waqtihiin marxalada kala duwan bay martaa sida marka hore waxa weeye laf iyadoo ah iyo mid guruuna oo geedka weyn laga fujiyo oo la talaalo isaga oo lagu xusho dhirtu siday u kala mira waaweyn tahay iyo siday u kala mira macaan tahay beeratan hadda waa u jeedaan timirteeda timirtayaysan weeye waxaana beeratan leh nin la yiraahdo Ibrahim Maxamed Yuusuf baa iska leh timirtu sanadkii mar bay dhashaa waxay u badan tahay waxay xaydaa bisha 3aad waxayna go'daa saa u jeedaanin bisha 7aad waxyaalaha sanadka kabil ku dhala bay ka mid tahay waxyaalaha waxa marka hadeer yani Puntland marka la yiraahdo waxa inta badan lama oga in timiri ka soo baxdo ama timir ay leedahay taasna waxa weeye iyadoo timir leh oo timirtu aad aragteen wadadii lagu iibinayo iyadoo baarsal ku jidha waxa weeye marka timirtu marxaladaha ay kala madhow waxa weeye marka ay bilowdo marka u horeeya yani wixii soo saadhaa xayga marka ku xiga waxa weeye lab iyo dhadig bay leedahay waxa weeye doobta laga jaraa waa qodaxda laga diifaa laboodka la soo gooyaa waa la qalajiyaa meel baa la dhigaa markuu xoogaa qalalo kawruxo wuxuu yeeshaa dambas has wax la yiraahdo bootarko kale ah markaasaa waxaa la soo qaadayaa fara ka mid ah khaylkii geedka dhadiga ah ayaa waxa weeye labada dhinacoo dabayshu kaga timaado baa laga marinayaa dabadeedna dhexdaa loo gelinayaa waa lagu xidhayaa si uu u bacrimiyo haddii marka taa uu waayo waxaa dhaceysa in khaylka dhadig uu hooro oo wax mira ah aanu soo saarin ama inuu noqdo saddexo oo uu noqdo waxaan lafi ku jirin hilibkiisuna yaraado marka timirtu marxaladahaasay kala martay tusaale ahaan marka aan xaggan aan fiirino hadda geedkaas timir baa saaran bal noo sharax aniga daawadayaasha iyo dhegeystayaasha geeda kan timirta saaran hadda waa u jeedaan halgelis baa la yihahdaa waa aragtaa nin mir kala bar bislaaday baa ku yaal iyo mirmir bislaaday inta kalena waa caddaan oo waxa weeye midabkii bisaylka keeni jiray baa ku wada dhasho ku wada eg saa u aragtaan halgeliska waxaa la yidhaahdaa qaar guduuda qaarka bisil iyo qaarka ceelinka markay leedahay
yani waxa la yidhahdaa halgelis inta kale markii geedku sidaa jaallada u wada noqdo waxaa la yidhahdaa busur oo waxaa jira dhir lagu cuno sidaa markay tahay bisaylka kasii macaan oo iyadu sidaa ku fiican marka waxa weeye waxaa ka horeysay oo ma lasla sugaya intay bislaanayso mise waa laba marxaladood baa la sameeyaa waxaa lagu ridaa kiish si ay ugu wada bislaato iyo in la farayo oo wixii bislaada hadba laga guro baa la sameeyaa marka kan hadda waxaan u malaynayaa in loogu talagalay in la faraynayo oo halgeliska lagu gurayo sida aad u jeedo waxa weeye yani wuu wada jaallo wada noqday xilliga waa xilliga bisalka diyaarka u ahaa marka kolley haddaan hadda waktiga kan aanay ku jirin kiiskii loogu talagalay halgeliska lagu guraya halgeliska lagu guraya ugu dambeyntii marka maxaa soo jeedinaysaa waxaan soo jeedinayaa ma aaminsana in Puntland beera leedahay timir ay ka baxaan dalagyo kala duwan leh siiba timirta oo dalka dibadiisa iyo Sacuudiga iyo meelaha looga keeno xilliyada la isticmaalo sida Ramadaanta marka maadaama beeraleyda ay tihiin oo timirta noocaas ay ku taalo dadkiina aysan aaminsaneen maxaad u sheegi lahayd waxaan u sheegi lahaa horta marka hore dadku inay dhulkooda aaminaan oo horta dhulka beertaan dhulka khayraad badan baa ka soo baxaya tan kale waa in la ogaadaa in Puntland ay timir leedahay oo timir fiican oo tayaysan ka soo baxdo waa in la ogaadaa beeraleyda waxaan ku boorinayaa inay timirta tayayaan oo intay guraanin baarsalada ku guraan oo dhulka markadada ah oo lagu gato geeyaan si loo ogaado taas waxay ka qayb qaadanaysaa in la ogaado khayraadka ka soo baxay Puntland sida aanu maqalay waxa Puntland hay'aduhu badankood dhaheen beera ma leh arrintaasi waxa daliil in aanay jirin oo war yani aan xaqiiqo ahayn yani indhihina idin macallina sida timirta iyo babayga qudaarta hadeer yani xilliga kan geed miroodka baabaxa qudaartan hoose oo yaanyada basasha basbaaska barbarooniga ay ka mid tahay waxay baxaan xilliga qaboobiya wixii loo gaaro sagaalaad baa la bilaabaya qudaar maasha Allah oo nooc walba baa ka soo baxda marka wixii jira cidina ma ankiri kadho laakiin arrintaasi waxay macnaha beeraleyda waxaan ku boorinayaa inay waxooda ay markadada geeyaan si loo ogaado oo aanay macnaha wixii noqon ogaansho la'aan waa maasantahay waa su'aal muhiim ah xamar oo kale waa laga soo dalbadaa iyadoo baarsalada ku jidha baan diyaarada u saaraa marka dhowr nin oo ganacsato ah baa soo dalbaday laag iyo karin iyo galgala iyo maraje kulli waa looga rari jiray marka waxa weeye taas waa la soo dalbadaa oo dadkii ninkii ogaaday ama ninkii arka oo ma garanaysaa arka oo yidhaah weydiiyo yaa xaggee timirtaasu ka timi wuu u sheegaa dabadeedna waa la soo dalbadaa haddeer waxa weeye dhulka haddeer laga soo dalbaday waxaa ka mid a sida barookloo kale waxaa ka mid a dulcadaloo kale marka aad bay macnaha timirtu timir badan oo tayo fiican lebay leedahay laakiin xoogaa waxaa ka dhiman suuqgeyntii baa ka dhiman intaasaa ka dhiman bal isku haddaa isbarbar dhigtay timirta laga keenay Sacuudiga meelahan Imaaraadka iyo teena dhulka baxda ka waran farqiga farqi weyn baa u dhaxaya farqiga u dhaxaya wuxuu yahay timirta Sacuudiga iyo guud ahaan Carabta ka timaada waa wax la kaydiyay oo muddo oolayd waxaan oran karaa 10 sano iyo timir la kaydiyay oo oolayd baa laynoo soo raraa laakiin tan waa fresh oo iyadoo fresh oo geedkii sidaa aynu aragno ku taal bay macnaha waxa weeye dalkeenii taal dadka waxaan ku boorinayaa dadka ganacsatada ah inay qaataan timirta waddanka ka soo baxday way helayaan waana loo hayaa waana diyaar inay timirta qaataan baa loo baahan yahay oo xiriir la soo sameeyaan beeraleyda Beeraleyda
بدينو بدك مدك بيو هاي صدانو برتمها وبيار القرية والوغدا بالكولا وبريني وايو بايني وكو قبسي وبابا جدا بدي حولو هيكو بدينو بدك مدك بيو هاي صدانو برتمها وبيار القرية والوغدا بالكولا وبريني وايو بايني وكو قبسي وبابا جدا مبدأ لغو بليا تعينك أدم يهي وقرين كوغاتو ووكون بريان برواقنا كوغارين برواقنا كوغارين هولو بليريو مرو رئيس بيشا مبدأ لغو بليا تعينك أدم يهي